بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقوم هسنتي كسفر بالكيا دمان ما أنتو كانوا جبنا والد بلاينس مات وقبل لو تلقي أو لو ديك جري إن سيكون السجوا ورستو ورا ده سببا بهيا إن ده مركز ديرو ودنك هذا ساعة بتفكسوا فوله يوحي لمدة إن شاء الله discussion يراكي دونا دكتور عبد الله iyo دكتور سعدية aan rabno inaan discussion ka yeelano blindnesska Soomaaliya iyo xeerarka uu kala marayo iyo cudurrada qaar oo halista ah oo laga hortagi karo iyo qaar aan laga hortagi karin dhamaanba iyo sida wadankeena uu halis badan ugu jiro indha la'aanta iyo sida aan rabno inaan wax uga qabanno bana discussion labaadna wuu jiri doonaa marka insha Allah kana ku hormarina oo hore waxaan ku hormaraa Dr. Abdallah wadanka waxaa ognahay Soomaaliya in patients badan ay late imaadaan keerka indhaha marka waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano ama doctorka weydiin waa maxay waxyaalaha ugu badan ama barriers ugu badan ee u keena Soomaalida inay waqti hore examination indhaha ay soo raadsan waayaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ترى سؤال أد مهم هواي runtii sida la socono bukaanada intooda badan ee Soomaalida ah istaaladu waxay yimaadaan xilli dambe yimaadaan marka caqabadaha haysto number 1 waxa ka ah awareness aan jirin macnaha ama wacyigelin bulsho oo aan jirin ayaa waxay ka tahay number 1 marka saas leenahay waxaad soo qaadan karnaa inta badan isbitaalada qaybaha indhaha bukaanada markay yimaadaan in badan oo kamid ah u sheegnaa in waqti wax laga qaban lahaa isbitaalka imaan taas micnaheedu yahay tusaale qofka hadduu caad lahaa oo kale caadkii uu ku daahay caadkaas ku daahay uu keeno in biyihii meelay mar lahaayeen ee xiraan kadibna nervihii uu dhinto waxba lagama qaban karo waxyaalaha aan soo qaadan karna waxaa ka mid ah oo caddeynaya in wacyigelinta bulshadu aad u hooseeyo bukaan waxaa arkaysaa laba indhood il ka mid ah loo fiiqay isha kale wuxuu u haystaa qaab keed ahaan ah wuxuu leeyahay isha kale waa keedsanaya taasoo keenaysa marka soo isha u haysto in isha intay biyo ku furmaan biyaas ay dilaan optic nerve ama nerve arka qaadi lahaa saasan qofku arag uu ku waayo waxaa kaloo ka mid ah in badan oo Soomaalida ka mid ah waxay aaminsan yihiin qofka markuu daa gaaro aragga inuu iska yaraanayaba oo wax laga qaban karin that's why isu iimaanay istaalada isu iimaanay bukaan ka mid ah bukaanada aan clinic lagu keenay shabada hoos uu ka yimid qaybteena markuu yimid maama ahayd hooyo Soomaaliyeed maal asaf waxaan u sheegnay waxba inaan araggeeda laga qaban karin sababtoo ah waxay daahiyeen waqtigii la keenay isbitaalka oo indhaha waxa ka dilay oo biyo uga furmay markaan weydiinay sababta isbitaalka xilli hore u tageysay waxay noo sheegtay inay sugeysay indhaha inuu si fiican arag u soo yaraado si markaas indhaha loo fiiqo marka wacyi marka uu hooseeyo waxa u garanaysaa wax u haystaan qalin walba oo aan sameyn inuu yahay cad la fiiqo saas daradeed ay tahay inay daahiyaan waxa kaloo ka mid ah barrierska ama cawaaqibta Soomaalida ka haysata in istaalada xilli hore tagaan misconception ama fear of surgery qofkan qof u yaqaan baa in loo fiiqay mise il qaliil looga sameeyay kadib qofku wax uu arki waayay qofka markuu isleeyahay meeshan indhaha la iskaga tuuraaba marka qofku waxa gelaysa cabsi ah in istaaladii uu tagi waayo gelaysaba waxa kaloo factors ka mid ah ama caqabada ka mid ah lack of school eye screening oo runtii aad muhiim u ah markii la sameeyana bukaano badan ay ka soo baxaan oo indhahooda daciif u yahay marka taas nafsirkeeda caqabad waaye waxa kaloo ka mid ah financial challenges ama dhaqaalaha oo runtii aan dadka u saamixin sababtoo qof la tacaalaya wuxuu cun lahaa ima loo jeefan lahaa caafimaadkiisa ma ka fakarayaba marka sababaas oo dhan waxay noqon karaan in xilli dambe imaadaan istaalada aad u mahadsantahay doctor Sacdiya glaucoma oo cudur problem badan lagu hayo waxaan rabnaa inay doctoreysada waxna nooga sheegto iyo heerka awareness-ka wadanka uu glaucoma ka marayo iyo sida wax looga qaban karo
بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري هذا هادسنتاhay su-aashaada haddii aan ugu faa'iideysto fursadan muxuu ahaa World Glaucoma World Blindness Month fursadan ah glaucoma iyo awareness-ka bulshadeena ay ka qabaan horta glaucoma af Soomaali haddii aan wax yar ku faahfaahiyo si ay simple ah ugu fahmaan dadka waa pressure-ka isha oo sare u kaca inta badan waa factor-ka ugu weyn oo lana daaweeyo laakiin glaucoma kaliya kuma qeexayno pressure-ka indhaha oo kacay bis wax badan oo muxuu ahaa isku tagaya keenayaan laakiin ma fahansana bulshadeena mana sameeyaan screening muxuu ahaa factorska hadda Dr. Cabdulla qodobka uu ka dhawaajiyo kale taa kamid ah oo bukaanka uu haysto haduu 40 dhaafo waa one of the risk factors waxyaabaha keena glaucoma ay kamid tahay marka qofkii inuu dhaho caadan aan suganaya ilaa intuu aragu soo yaraanayo sida dhakhtarka ku dhawaajiyo kaleeto يعني ووعيga heerkaas ka joognaa bulshadeena marka hadii aan mowduuca ku soo laabto glaucomada waa yani xanuun ku dhaca neerfaha dambe ee isha factors badan oo isu tagayna ay keenayaan factorka ugu weyn waa pressure-ka isha oo muxuu ahaa kor u kaca sida jirka uu leeyahay dhiikar indhahana waxay u qabaan wax la dhaho biyo kar soo kaasa marka wuxuu u baahan yahay in monitoring lagu sameeyo qof kasta oo haysta family history oo dadka waalidkiisa ay qabeen problemkan sidoo kale ishiisa ay ama jug ku dhacday ama qalliin hore loo sameeyay 40 sano ay da'diisu ka weyn tahay ethnic origin-ka Afrikaanka haysto sidana Soomaalideena oo kale aan qayb ka nahay waxa soo dhan waxay isku noqonayaan factorskaas inay saameyn ku yeeshaan neerfaha dambe aragga marka maxaa looga hortagi karaa waxa ugu muhiimsan looga hortagi karaa waxa waaye inuu qofku lahaado qofka factorskaas haysta familigiisa ay la nool yihiin xanuunka horta waa inuu routine check up sameeyo dadka kalena waa inay every 3 months to 6 months ay sameeyaan 6 bilood mar ama 3 bilood mar inuu qofku hospitaalka booqdo ay screening sameeyo muxuu ahaa xanuunkan waxa uu la xiriiraa arag la'aan aan la daaweyn karin wixii uu anaga bukaanku markuu noo yimaado arag intuu haysto aday 30% tahay aday 50% tahay aday 80% tahay iyo aday 100% tahay cases oo early detection ah jiro oo nasiib loo xil hore la arko case-ka waxaad awooda oo kaliya hada adiga bukaanku isla shaqaysaan in aragga intuu maalintaas haysto la badbaadiyo laakiin wixii tagay lama soo celin karo at all sababtaas waa sababta loo leeyahay waa irreversible blindness waana midda labaad ee keento arag yarida muxuu ah waxa sababa arag la'aanta marka laga yimaado caadka waxa ku soo xiga glaucomada marka sida ugu muhiimsan looga hortagi karana waa routine check up kaas oo qofkii hospitaalkii booqdo klinikadii la booqdo pressure-kii la iska cabiro lagu baraarugsanaado ilmaha yaryar oo kale markay dhashaan way ku dhacdaa ilmaha yaryar oo kale waxay uga duwan yihiin dadka waaweyn calaamado waxa jira la dareemi karo oo muxuu ah sida inay ishii soo weynaanayso ilin inay ka daadanayso ishii cadaan bilaabaysa qaybteeda hore maxaa la yiraahdaa ilmiyo iftiinka dhibsanayo ishii isku qabanayo waxay ka mid tahay waxyaabaha oo xilli hore lagu garan karo in maxaa la dhahaa ilmahan istaalka loo qaado oo la baaritaan lagu sameeyo ka hortagga mar walba glaucoma waxa ugu muhiimsan ay haysato waa ka hortag aada u mahadsantahay Torres that is good points Dr. Cabdulla waxaan rabnaa wax ka ogaano ilmaha oo problemaatigooda intaan aad noogu soo kordheen sida ugu wanaagsan ee waalidka ama macallimiinta ay waqti hore ku ogaa karaan problemyada haddii ilmahooda ay jiraan ama ilmaha iskuulka dhigtaba ay qabaan Torre aad u mahadsantahay runtii su'aal aad muhiim ah waaye sidee buu waalidka Soomaaliyeed ku garan karaa in cunuga oo dhalay ama cunuga guriga kula nool arigiisu u yaryahay midda koowaad waxyaabo ay ku garan karaan waalidku waxa kamid ah da waalidku hormaro cunugii markii TV-ga oo inuu daawado oo kale TV uu hoos ka galayo cunugii markii uu wax akhriyo buugta markuu soo qaato oo kale oo sameeyay in buugtii hoos iska soo galiyo si fiican ugu arko waxa kamid ah cunugii mar walba ka sheeganaya madax xanuun waliya madaxa xanuunayo mar walba uu
wax akhris yiraahdo inuu ku daalay akhriskii oo xataa even waxa la yiraahdaa carruurta inta badan argood u yaryahay way ku adagtaa homework inay ka shaqeeyaan marka waxa kaloo ka mid ah isha inay biyo yarato oo kale waxa la waalid fahmi karaan ka mid tahay ama cunugii maanta blinking uu sameynayo oo libiqsi tira badan uu sameynayo si inta tifsax ugu noqdaan wax uu arko oo kale waxa kaloo ka mid ah haddii toosh waalidka isticmaalo oo kale uu ku arko ah wax cadaan ah reflex cadaan ka soo baxayo isha qaybta madow dhexdeeda ka soo baxayo waa noqon kartaa one of the signs oo noqon kartaa cudurrada qaar ay ku garan karaan in cunuga argiisa uu yar yahay hadda u nimaano xagga dhanka macallimiinta runtii macallimiinta waxyaalaha ay ku garan karaan waxaa ka mid ah cunuga markuu safka dhexe fadhiyo ama safka kore uu fadhiyo oo kale safka gadaal uu fadhiyo oo kale waxaa ku adag in sabuurada arkaa ku adag soo marka cunuga wuxuu bilaabayaa qofka agtiisa fadhiyo oo kale inuu ka koobiyeeyo waxyaalaha uu qoraayo waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha macallinka uu garan karo waxaa ka mid ah cunuga hal ama labada indhood aad u soo yareenayo oo isticmaala wax loo yaqaan pinhole soo si fiican ugu arko marka indhuhu soo kaduudaya oo barashar uu saaraya si waxaas fog ugu arko oo kale waxaa ka mid ah labada indhood mid argeedu uu yar yahay inuu qabto si macnaha ishaas maadaama balaari ay tahay ama shuwaaci uga jirto oo kale soo si fiican wax u arka isha kale marka hal iluu qabanaya hal iluu isticmaalaya marka taasina calaamada inuu kartaa waxaa kaloo ka mid ah carruurta inta badan qaarkood waxa lagu arkaa markuu arag yar yahay oo kale inay sameeyaan loo yaqaan head tilt ama turn of the head madaxa yara qaluucinayaan si fiican wax u arkaan adan waxa ka mid ah waxyaalaha lagu garan karo in aragooda yar yahay marka isla su'aasha waxay ahayd goorma tahay inay carruurta soo raadiyaan yimaadaan xarumaha indhaha waxyaalaha ugu muhiimsan horta calaamadii aan ka soo hadalnay mid ka mid ah haddii carruurta lagu arko in dhakhtar indho la geeyo xilli hore waxyaalaha marka la kumandgareeyo ama la soo jeediyo waxaa ka mid ah carruurta markay dhashaanba in loo sameeyo eye check-up loo sameeyo carruurta intay jiraan 6 bilood ilaa 1 sano eye check-up in loo sameeyo carruurta markii ay jiraan pre-schoolka intaas bilaabin iskuulka pre-schoolka ahaado ama school age ka ahaado hortoodana waxaa loo baahan yahay in screen loo sameeyo xaqiijiyo aragooda sida uu yahay marka intaas ku soo koobaya waa mahadsantahay Tore in badan retinoblastoma marka hore haddii aan isla qeexno waxaa waaye mid ka mida burooyinka ugu caansan ee ku dhaca indhaha carruurta wuxuu aad ugu badan yahay ilmaha da'doodu ka yartahay 5 sano ka weynna wuu ku dhici karaa xanuunkan waa isha gudaheedu ka bilowdaa especially shabakada dambe ee aragga qabata meesha loo yaqaano retinada kadibna wuxuu sidaas ugu faafaa isha gudaheedii qaybta xabka kadibna muxuu ahaa ishii oo dhan saas u qabsadaa ilaa muruqihii waana xanuun ka mid ah xanuunada kansarka indhaha ku dhaca haddii aan xilli hore la ogaanina ah kawa ugu halista badan markay imaato bulshadeena Soomaaliyeed geesaska aan isbitaalada ku aragno really waa disappointing waa kaysas aad yacni niyad jabayso oo xilli hore aan ilmihii la ogaanin kayska kuugu soo dhow wuxuu kuu imaanayaa isbitaalka markuu 40% 60% uu qabsada isha gudaheedii oo xanuunka haysto kuwaasi waa kuwa noogu roon markaan halkan joogno waayo kayskaas waxaa waaye ishii unbaa baxayso kadibna daaweyn iyo life saving iyo prognosisku waa uu fiican yahay natiijada dambe ee xanuunku way fiican tahay markii laga gaaro bukaanada noogu roon horta daan Soomaalinaha waa kuwaas intaan aniga arkay marka xanuunkan xilli hore haddii la ogaado wax badan la badbaadin karaa isha kaliyana maaha wuxuu saameynaya waa xataa naftii oo dhan waliba waqti kooban oo bila yar ah bila yar cilmo waxaad arkaysaa 3 bilood gudahood oo xanuunkii ku qaatay ilaa maskaxdii aaday ishuna sidaan wada ogsoonahay waa qayb ka tirsan maskaxdeena oo banaanka taalo waay marka xanuunkii markuu ku dhaco isha gudaheedii markuu ku dhaco wuxuu aadayaa oo raacayaa qaybihii murquhu aadayaa neerfihii dambuu aadayaa maskaxdii uu raacayaa halkaas uu tagayaa marka xanuunkan
sida ugu fiican oo maxaa la dhahaa waalidkoo kaleeto ku dareemi karaan waxaa waaye iftiin inay ishu habeenkii oo kaleetood ay leedahay ama wax cadoo kaleeto ku arag sida bisadaha oo kale iftiinka ay indhahoodu leeyihiin oo kaleeto ay leeyihiin 60% ilmaha qaybo ka mid ah sidoo kaleeto ilmaha hooyooyinka waalidiinta aad inay u feejignaadaan ay fiiriyaan ilmaha isha meesha iniinka wax laga arko gudaheeda cadaan ku samaysmay nuur ama iftiin ka soo baxaya kii aad ku taqaan oo ka duwan ishio ilimeynaysa cunug inuu isha xugaya ama uu taataabanayo kaleetood inuu maxaa la dhahaa madaxa dhinac u qalloocinayo inay ishu naftirkeedu qalloocatay way aragiya yaraanay hal inuu ilmihii isticmaalaya soo marxaladahaas inay ku baraarugsanaadaan horta waalidka waa midda koowaad isbitaalada sidoo kaleeto ka dhaqaatiir ahaan anagana inaan maxaa la dhahaa ilmaba haddii aan aragno aan si fiican focuska u saarno inaan ilmahaas aan rule out ku sameyno wax la xiriira neoplasm ama buroodaas oo isha gudaheedaas ay ka samaysmayso because mararka qaar waxaa lagu qaldaa cataractiga caada lagu qaldaa waxaa laleeyahay waxan waa congenital cataract iskaankii waa in la sameeyo protocol la maraa jiro iskaan in la saaro pressureki in la cabiro ishi dawo inta lagu dhibciyo shabakadii dambe kaleetood la fiiriyo isha gudaheeda si waadaxa loo arki karaa indirect ophthalmoscope iyadoo loo isticmaalayo taas marka wax walbo cad inaan u arkin inay cataracti tahay soo pressureka hadii la cabiro karo waxa la arki karaa pressureka inuu kacay hadii uu saameynayo meelihii ay marayeen aqueous humorkii iyo pressure isha meesha biyihii mari lahaayeen iskaanka oo muxuu ahaa b iskaanka loo yaqaano indhaha la saaro kaleeto xilli horeeto detection sameyn karaa oo la arki karaa xanuunka Mareykanka oo kaleeto bulshooyinka soo maray waxay gaareen ilmaha markuu ku dhaco xanuunkan inay xataa iska daa isha ay arag badbaadiyaan ay marayaan costella radiations waxa la dhahay isticmaalayaan meeshiisa loogu tagaa waa lagu soo gubaya marka anaga waxaan rabnaa inaan soo gaarnay stage-kaas insha Allah bulshadii iyo dhaqaatiirtii isku duuban muxuu ahaa daaweyntiisa markii la dhaho xanuunkan daaweyntiisa waxay ku xiran tahay stage-ka uu maraayo haddii uu xanuunku isha ku eg yahay isha la baxda inta badan qofkana waxaa loo diraa wax la dhaho chemotherapy la siiyaa sidaas oo ilmihi yara ku badbaadaa hadda ilmo badan oo noo badbaadana way jiraan ilmaha nasiib kale oo early time kale ogaada waxaa dhacda ilmaha qaar inuu labada indhood uga dhaco waxaa dhacda inuu labada indhood iyo maskaxda isku darsado soo waa maxaa waxaan kansariska kuwooda ugu halista badan indhaha ku dhaco kamid yahay especially caruurta marka inaan feejignaano oo xilli hore baaritaan la sameeyo maadaama uu yahay wax aragii iyo naftii labadiiba galaafanayo waqti yar gudihiisa marka waa ka intaasan ka dhihi lahaa